wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliya Cismaan Cabdulaahi Saxardiid ayaa ganacsatada iyo bulshada ugu baaqay inay ku dhaqmaan oo raacaan awaamirtii xukuumadda iyo madaxweynaha Soomaaliland ka soo saareen arrimaha sixir bararka. wasiirku wuxuu intaasi ku daray in ciddii fulin weyda awaamirtan ama ku dhaqmi weyda laga qaadi doono tallaabo adag oo sharciga waafaqsan. waxaana wasiirku hadalkan ka sheegay mar uu shalay furayay kulan lagu qabtay xarunta akademiga nabadda ee magaalada Burco oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer. haddaba wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi dal walba astaan buu leeyahay iyo wax lagu galo qaarna waynu haysanaa qaarna ma haysano baasaboorkiina lama qaato wali leenama ictiraafin waa astaanta qaran ee jirta lacagtuna waa astaanta qaran iyo ummad jirta waxay leedahay inagu dollar bay lahayna jecelsiyay laakiin dal Mareykan ma nihin qodobka ay ka hadlaysaa waa mid jira madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo arrinta meel cad buu dhigay waa dambiile ninka 7,000 wax ka badan ku sarfaa dollarka 7,000 wax ka badan ninka ku sarfaa waa dambiile ka qarinaya waqtigan maanta abaaraha ku jirnay ummadeeniba ay dhibaataysan tahayna ka ribix ka deeyay ama macaash ka daayana wallahi sum buu qorshanaya runta marka loo wada hadlo waayo waa maalintii la isu naxariisan jiray haddii dadku ay wax isu yihiin ama ay isdareemi jireen ama ay isdareen ka dhaxeeyo ama ay walaal yihiin ama ay isku dhaqan yihiin ama ay isku dal yihiin ma hati macaashka laga sameyn jiray qodobkaas waxaan leeyahay waa qodob jira dawladuna ishay ku haysaa madaxweynuhu ishu ku hayaa anagoo wasiiradiisii neeshan ku haynaa ciidamada qalabka sida hadhow cuqaalayaan leedin yeedin marka la yiraahdo hebel baa lagu xiray isagoo waxaan ma fahantaa idinku bana laga hadhow leedin yeediyay oo in hebel baa la xiray baa la oran doonaa. xukuumadda Soomaaliland ayaa dadaal weyn ugu jirta xakamaynta kor u kaca sarifka lacagaha iyo maciishada hase yeeshee sarifkii lacagaha dollarka ayaa wali kor u sii socda. Kays Axmed Digaale, SAB TV, Burco.